kulanti waxaan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijkeena wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka oo hadahayo kale aad ka daawan jirteen channelkeena warqaa tube. waa maalinimo axad ah 2 bisha December sanada 2018 qodobada dunida ugu waaweyn ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona warbixin cusub oo cadeysay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya uu ka dambeeyay dilkii wariye Jamal Khashoggi. madaxweyne Erdogan oo ku eedeeyay wada shaqayn la'aan Sacuudiga kuna baaqay in maxkamadeynta 18 xubnood ee loo haysto dilka Khashoggi ay ka dhacdo dalka Turkiga. waxaan sidoo kale barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa shirkii G20 ee ku soo gabagaboobay wadanka Argentina. waxa ka soo baxay qodobo aad u xiiso leh oo quseeya ganacsiga dunida. waxaan sidoo kale barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa Shiinaha iyo Mareykanka oo ku heshiiyay xabad joojin ka dhan ah dagaalka ganacsiga ee labada dal u dhaxeeya kadib markii ay kulmeen madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. waxaa sidoo kale barnaamijkeena aad ku daawan doontaan MBS oo ka baqdin qaba in afgambi military xilka looga xayuubiyo kaas oo ay abaabulayaan xubno ka mid ah qoyska reer boqortooyo. Trump iyo Putin oo is arkay xilli ay taagan tahay xiisada dagaal ee u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka. aan ku bilowno barnaamijkeena. warbixin cusub ayaa cadeynaysa in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya uu ka dambeeyay dilkii wariye Jamal Khashoggi. CIA-da Mareykanka ayaa sheegtay in dhaxal sugaha wadanka Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman uu amri karo dilkii wariye Jamal Khashoggi isagoo oo amarkaas ku bixiyay fariimo uu u diray ninkii hogaaminayay kooxda dilka wariye Jamal Khashoggi fulisay sida Wall Street Journal oo Mareykanka ka soo baxa uu soo wariyay. ugu yaraan 11 fariin ayaa waxaa diray ninka la taliyaha u dhow ah kaas oo kooxdan si gaar ah u maamulayay dilka geysatay. waxaana la sheegay in saacado ka hor iyo kadib dilkaba ay fariimahaasi socdeen. CIA-da ayaa sidaas qiimeynteeda ku sheegtay dhawaanahan la ogaaday. dhaxal sugaha ayaa kooxdan u sheegay bishii Agost ee la soo dhaafay in uusan aqbali karin inay ku guul daraystaan soo qabashada Khashoggi iyo inay dib ugu soo celiyaan wadanka Sacuudi Carabiya. waxaana uu sidoo kale u sheegay haddii ay ku guul daraystaan soo celintiisa inay qaarajiyaan. sida laga soo xigtay dukumentiyada la arkay ee CIA-da fariimaha la diray waxaa dirayay ninka la taliyaha dhow u ah Mohammed bin Salman ee lagu magacaabo Saud al-Qahtani kaas oo ah la taliye sare oo la shaqeeya Amir Mohammed bin Salman. Qahtani ayaa kor ka maamulayay 15 xubnood ee dilka wariye Jamal Khashoggi fuliyay. waxaana uu ahaa ninkii abaabulayay macluumaadka iyaga ka soo qaadayay una keenayay Mohammed bin Salman. warbixinta CIA-da oo aan wali si rasmi ah loo shaacin waxa kale oo adkeynaysa in Mohammed bin Salman uu yahay qofka ka dambeeyay dilka wariye Jamal Khashoggi. isla wararkaas ayaan ku guda jirnaaye madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyay wada shaqayn la'aan boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana uu ku baaqay in maxkamadeynta 18 xubnood oo la haysto dilka Khashoggi inay ka dhacdo wadanka Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalbaday sabtidii shalay ahayd in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u soo dhoofiso wadankaasi Turkiga dadka lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen dilkii ka dhacay qonsuliyadda Sacuudi Carabiya ay ku leeyihiin magaalada Istanbul ee lagu qaarajiyay wariye Jamal Khashoggi. waxaana uu hoosta ka xariiqay madaxweyne Erdogan in boqortooyada Sacuudi Carabiya aysan si fiican oo quman ula shaqayn gaar ahaan kiiska la xiriira baaritaanka dilka wariye Jamal Khashoggi. isagoo ka qayb qaadanayay shirkii G20 ee Buenos Aires ku soo gabagaboobay hogaamiyaha reer Turki waxa uu saxaafadda u sheegay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ay is arkeen isla markaana uu dhiibay fariintiisa adag ee ku aadan wada shaqayn la'aanta. waxa uu sheegay inay muhiim tahay in maxkamad la soo taago kuwii ka dambeeyay dilka wariye Jamal Khashoggi oo Turkiga lagu maxkamadeeyay buu yiri. waxaana uu qiray intaas ay ka qayb qaadan doonto helida su'aalo badan oo meel loo raaco la yahay beesha caalamka iyo adduunyaduna ay doonayso. Erdogan ayaa sidaas saxaafadda u sheegay. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in Sacuudiga ay diideen in ay caawiyaan dacwad oogaha wadanka Turkiga oo ay ku caawiyaan macluumaad dhowr ah oo quseeya dilkii wariye Jamal Khashoggi. madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shirka G20 ka sheegay in dilka Khashoggi uu yahay tijaabo caalamka oo dhan hortaala. madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay muhiim tahay in caalamka oo dhan ay il gaar ah ku fiiriyaan
dilka wariye Jamal Khashoggi isagoo saxafiyiinta kula hadlayay magaalada Buenos Aires. Erdogan waxa uu sheegay in xalinta dilka wariye Jamal Khashoggi kiiska la xiriira ay tahay mid muhiimad gaar ah ugu fadhisa Sacuudi Carabiya iyo qoyska reer boqortooyo. Erdogan waxa uu sheegay in marnaba Turkigu uusan siyaasadeynaynin dilka wariye Jamal Khashoggi isla markaana aysan doonaynin in la ceebeeyo oo la fadeexeeyo boqortooyada. waxa uu ku tilmaamay in qoyska reer boqor ay yihiin dad sharfan balse loo baahan yahay inay wax ka qabtaan arrinta taagan. Erdogan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau kaliya uu yahay qofka sida dhabta ah arrinta Khashoggi uga sheekaystay Mohammed bin Salman isla markaana loo baahan yahay in arrintaas adduunyada oo dhan ay si wanaagsan wax uga qabato. isla wararka Sacuudiga iyo dilka wariye Jamal Khashoggi ku xindaaban ayaynu ku guda jirnaaye. MBS dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa waxa uu ka baqdin qabaaba leeyahay in afgambi military xilka looga xayuubiyo. warbixin cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in dhaxal suga Mohammed bin Salman oo sidoo kale loo yaqaan MBS uu hadda aad u niyad jabsan yahay isla markaana uu ka baqdin qabo in tallaabo military jagada looga tuuro taas oo ay abaabulayaan xubno ka tirsan qoyska reer boqortooyo. website-ka Imaaraadka laga leeyahay ee liidada Al-Khaleej Online ayaa soo wariyay in ciidamada Sacuudi Carabiya gaar ahaan kuwa militariga xiriirihii ay lahaayeen la kala wareejiyay intii uu ku sugnaa Mohammed bin Salman shirka G20 ay ka soconayay wadanka Argentina. waxaa la sheegayaa in ciidamadii ku sugnaa caasimada loo wareejiyay bariga iyo sidoo kale gobolka galbeedka dhaca, waxaana la sheegayaa in laga qaaday caasimada Riyadh inta badan ciidamadii xoog lahaa ay joogay. wararku waxay sheegayaan in tani ay tahay calaamad muujinaysa in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya lagu soo foleeyahay. Mohammed bin Salman ayaa wajahaya fadeexad xoog leh oo ka dhalatay dilkii wariye Jamal Khashoggi iyo dagaalka uu Sacuudi Carabiya horboodayo ee ka soconaya wadanka Yemen. dhanka kalena xogayaha guud ee ururka la yiraahdo Gulf Cooperation Council GCC oo wadamada Khaliijka ay ku midoobeen Abdulatif Sayani ayaa lagu wadaa inuu booqdo wadanka Qatar si uu ugu geeyo amiirka wadanka Qatar Amir Tamim bin Hamad warqad casuumaada oo ka timid boqorka Sacuudi Carabiya Salman bin Abdulaziz. warqadaas oo ah casuumaadaas oo ah inuu ka soo qayb galo shirka GCC ee ka dhici doona boqortooyada Sacuudi Carabiya bishan. Kuwait warbaahinteeda ayaa soo warisay iyadoo soo xigeynaysa ila diblomaasiyadeed in hadda la doonayo in Qatar lagu marti qaado shirkaas si ay uga qayb gasho. sanadkii la soo dhaafay wadanka Istaag Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Sacuudiga oo dhinaca ayaa markaas xiriirkii u jaray Qatar iyaga oo sheegay in ay go'doomiyeen, waxaana go'aankaas la qaatay Masar oo aan ururkan ka tirsanayn. Qatar ayaa haddii ay aqbasho shirkan waxa ay noqon doontaa in isu soo dhawaasho laga gaarayo khilaafkii muddo soo jiitamayay. dhanka kalena madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay dhigiisa wadanka Mareykanka Donald Trump intii ay ku sugnaayeen dalka Argentina. labadan hogaamiye oo qaatay kulan albaabadu u xiran yihiin ayaa waxa kulankooda soconayay 50 daqiiqo, waxaana la sheegay in ay kaga wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya caalamka iyo labada dalba. waxa uu ahaa kulankan midkii labaad oo ay isku arkaan labada hogaamiye waa Erdogan iyo Trump intii lagu sugnaa caasimada Argentina oo socday shirka G20. jimcadii ayaa waxa ay labadan hogaamiye si kooban isugu arkeen furitaanka shirka, waxaana madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweyne Trump ay iska wareysteen si kooban xaaladda labada dal. kulanka dhaxmaray Erdogan iyo Trump ayaa sawiradooda la soo bandhigay, waxaana labada nin la sawirnaa madaxweynaha FIFA ninka la yiraahdo Gianni Infantino. Erdogan iyo madaxweynaha wadankaasi Mareykanka ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ay ku jiraan kiiska dilka ah ee marxuum Jamal Khashoggi. dhanka kalena madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isla Argentina kula kulmay dhigiisa wadanka Ruushka Vladimir Putin, waxaana ay ka wada hadleen arrimo ay ugu horeyso dhuumaha gaaska qaada ee la yiraahdo Turkey Stream ruushka ka yimaada mara wadanka Turkiga, waxaana barnaamijkaas uu yahay barnaamij xagga dhaqaalaha horumarinaya oo labada dalba saacidaya. Turkey Stream ayaa ah mashruuc gaaska lagu soo qaadayo tubooyin oo laga keenayo wadanka Ruushka iyadoo la soo marsiinayo badda madow kadibna la keenayo wadanka Turkiga. Turkiguna wuxuu sii qaybin doonaa wadamada dariska la ah, taas oo labada dalba faa'iido wadaag ay ku yihiin. waxay sidoo kale labada hogaamiye ka hadleen dagaalka ka soconaya wadanka Syria iyo sidii loo xalin lahaa xaaladda halka ka jirta. 27 Oktoobar Turkigu waxa uu martigeliyay shir ay yeesheen 4 qaran oo caalamka ah oo kala Turkiga, Ruushka, Faransiiska iyo Germany, waxaana looga hadlay colaadda wadanka Syria. wali waxaad daawanaysaan barnaamijkeeni wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka oo idinkaga imaanaya
warqa tiyuba. shiinaha iyo maraykanka ayaa ku heshiiyey xabajoojin dagaalka ganacsiga ee labadan dal dhowanahan ka dhexeeyay kadib markii ay kulmeen madaxweyne Trump iyo madaxweyne Xi Jinping. shiinaha iyo maraykanka ayaa isku raacay xabad joojin ku salaysan dagaalkii qaraara ee xagga ganacsiga oo bilihii lasoo dhaafay u dhaxeeyay Washington iyo Beijing. waxaana heshiiska labada madaxweyne dhexmara uu ka dhacay magaalada Buenos Aires ee wadankaasi Argentina, waxaana ay kulankooda qaateen kadib markii uu soo ilaaday shirka G20 ee halka ka dhacay. Trump ayaa waxa uu markaasi dhimi doonaa lacagaha dheeraadka ah ee canshuuraadka ahaa ee laga qaadayay badeecooyinka shiinaha laga keeno ee maraykanka taga. waxaana sidoo kale taas si lamida shiinuhu ay sameyn doonaan iyaguna inay canshuuraha ka yareeyaan. aqalka cad ayaa xaqiijiyay in 90 maalmood gudahooda lagu hakin doono canshuurihii aqalka cad uu ku soo riday gaar ahaan madaxweyne Trump markii uu talada yimid badeecooyinka maraykanka uga yimaada wadanka shiinaha. arrintani waxay ka qayb qaadan doontaa in xiisada labada dal ka dhaxaysa waa shiinaha iyo maraykanka ay qabowdo, iyadoo sidoo kale labada hogaamiye ay ka hadleen wada shaqayn xagga ciidamada ah in ay wada yeeshaan. shiinaha iyo maraykanka ayaa isku khilaafsan meelo badan oo uu ganacsigu ugu horeeyo, waxaana madaxweynaha hadda talada haya ee maraykanka Trump uu aaminsan yahay in shiinuhu uu si aan la soo koobi karin oo xadka baxa uu faa'iido badan uga helo ganacsiga ka dhaxeeya, taasna ay tahay mid loo baahan yahay in la soo afo. waxaa sidoo kale shiinuhu uu salugsan yahay dhaqdhaqaaqa military ee uu maraykanku ka wado badda loo yaqaano koonfurta shiinaha, halkaas oo ay ciidamada maraykanku dhowlatusyo ku sameeyaan isla markaana gacan siiyaan ciidamada gobolka, taas oo shiinaha aad uga caraysiisay. geesta kalena isla wararka madaxweyne Trump qoseeya ayaynu ku guda jirnaaye. madaxweyne Trump ayaa sheegay in sanadka soo aadan bilowgiisa uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha wadanka maraykanka Donald Trump ayaa sheegay Sabtidii in uu rajaynayo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un bisha Janaayo ama Febraayo ee sanadka 2019. waxaana ka wada hadli doonaa buu yiri xaaladaha guud ee dunida iyo dalalkaas kuwa qoseeya. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda u sheegay isagoo oo kor saaran diyaaradiisa Air Force One oo uu ka soo duulayo wadanka Argentina in xiriirka kala dhaxeeya madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu yahay mid aad u wanaagsan. Trump ayaa intaas ku daray in uu rajaynayo in Kim Jong Un uu yimaado wadanka Maraykanka oo uu ku casuumo. dhanka iyo Ingiriiska haddaan fiirino, ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in aysan markaasi iscasili doonin tan iyo inta ay Britain si dhammaystiran ay uga baxayso midowga Yurub. Theresa May ayaa sheegtay in aysan ka tagi doonin jagada ra'iisul wasaarenimada tan iyo inta ay Britain si dhammaystiran uga baxayso ururka midowga Yurub oo uu qorshahoodu socdo. waxaana ay sheegtay in rajo weyn ka qabto in qorshaheeda ka bixitaanka midowga Yurub uu taageero baarlamaanka Ingiriiska. dhowr wasiir oo ka mid ah golaheeda wasiirada ayaa is-casilay iyaga oo muujinaya sida ay uga xun yihiin heshiiska ay saxiixday Theresa May oo ku aadan ka bixitaanka midowga Yurub. waxaana sidoo kale ka soo horjeeda qaar badan oo ka mid ah xisbiga ay ka soo jeeda ee conservative-ka oo u muujinaya in heshiiskaas oo aan ahayn heshiis saxa. baarlamaanka wadanka Ingiriiska ayaa la horgeyn doonaa heshiiskan oo ay meel mariyeen golaha wasiirada Ingiriiska iyo madaxda ururka midowga Yurub. qaybihii dambe ee barnaamijka isla soo gaarnay, jamhuuriyadda islaamiga Iiraan ayaa iska difaacday eedeymo xoog leh oo kaga yimid wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Maraykanka. Iiraan ayaa sheegtay in barnaamijkeeda gantaalaha ay yihiin kuwa difaaca, taasina ay ka dhigan tahay inaysan jabinaynin qaraarka qaramada midoobay ee markaasi dhanka hubka ah, sida ay soo warisay wakaalada wararka ee wadanka Iiraan ee la yiraahdo IRNA. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa Tehran ku eedeeyay in ay tijaabinayso gantaalo ridadooda dheer yihiin oo aad meelo fog u gaaraya isla markaana xambaara madaxyada nuclearka, taas oo uu ku tilmaamay inay tahay wax aan la aqbali karin. laakiin afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi Iiraan ninka la yiraahdo Bahram Qusaymi waxa uu sheegay in Iiraan aysan ku xadgudbaynin shuruucda u taala adduunyada iyo kuwa qaramada midoobay, isla markaana gantaalada ay samaysanayso hadda ay yihiin kuwa difaac kaliya ku ah, taasna ay u ogolaanayaan dhammaan qawaaniinta dunida u yaala ee xagga hubka. dhanka kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda difaaca ee wadanka Ruushka Colonel Alexander Fomin ayaa waxa uu muujiyay walaac uu ka qabo in ciidamada NATO ay saldhigyo xoog leh ka samaysanayaan xuduudda Ruushka, taas oo sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin. waxa uu sheegay iyaga oo ku soo gambanaya in dhowlatusyo la sameynayaan wadamada dariska ah sida Poland iyo wadamo kale in ay hadda bilaabeen in ay saldhigyo ka samaystaan, taas oo uusan Ruushka aqbali karin. waxa uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga wadanka Ruushka in wadanka Poland
oo dhawaanahan lagu qabtay dholatus ciidan oo ay NATO sameynayaan in hadda loo bedeli rabo meelo ay NATO ka samaysato saldhigyo ciidan taas oo sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin. ugu dambeynna madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin ayaa is arkay xilli ay taagan tahay xiisada dagaal ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. Vladimir Putin iyo Donald Trump ayaa kulan yeeshay waddanka Argentina ku kulmay si kooban iyaga oo ka wada hadlay arrimaha labada dal. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Sarah Sanders waxa ay sheegtay in kulankan uusan ahayn kulan macno badan leh waxaana ay tilmaamtay inuu ka mid ahaa kulamo is arag oo kaliya ku kooban oo aan sida u mug weynin oo madaxweyne Trump la yeeshay dhowr hogaamiye oo ku arkay waddanka Argentina. aqalka Kremlinka ee looga arramay Ruushka waxaa dabalka looga qaaday in Vladimir Putin iyo Donald Trump ay kulmeen laakiin lama faahfaahin kulankooda waxyaabaha looga hadlay. madaxweyne Trump ayaa horaan sheegay inuusan la kulmi doonin Putin maadaama ninkaas uu ku lug leeyahay colaadda gacanka ka taagan Crimea ee u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine. barnaamijkeena wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamkana waa naga intaa tan iyo kulantadeena barnaamijka lamid ah nabadgelyo.